gudoomiyaha degmada Galdogob Xasan Faarax Maxamed ayaxle ayaa booqday saldhigga booliska ee degmada Galdogob halkaas oo ay ku xirxirnaayeen dad maxaabiis ah oo ay soo xirxireen ciidanka ilaalada deegaanka ee madaniga ee degmada Galdogob gudoomiyaha ayaa indheeyay xaaladda saldhigga booliska ee degmada Galdogob maxaabiista ku xiran iyo sida ay ciidanka madaniga u shaqeynayaan taliyaha ciidamada ilaalada deegaanka ee madaniga oo lagu magacaabo Shariif Mawlid ayaa waxa uu ka warramayaa howlgallada ugu dambeeyay dadka ay ku soo qabteen iyo sida hawsha horta waxa shaqeynay 2 bilood labada bilood wax badan baan qabanay waxaan qabanay kuwa dadka dhaca oo anta ama toori soo qaata ama qori soo qaata ama ul soo qaata dadka baada waan qabanay waxa kale oo qabanay kuwa tuugada ayaguna sida farsamada dadka wax uga xada waxa soo qabanay xitaa dadka istuuriyeeye waxa soo qabanay kuwa khamrada cabba iyo khamrada iyo kartoomaha soo qabanay marka intii aan hadda howlaha ku jirnay wax caqabada oo naga hortimid male dadku si fiican ayuu ugu hambalyeynaya qabashada dadkaas laga qabanayo hadda waxa noo xiran dad 5 qof ah waxaan ku soo qabanay faldambeedkan ku soo qabanay waxa ahayn dad lacag waxay ahaayeen xaday haddana dad tuuriyay oo guryaha hadda xilliga roobkana waa lagu jiraa jiingadii ay wada duleeshantay ayadoo dagaalka ay dhexda kaga jiraan lacagtiina ay haystaan baan soo qaban hadda ka horna waxaan soo qabanay kuwo magaalada dhexdeeda dad raba inay dilaan oo ay amlaayaan u garanaysaa qayb waxaan u dhaadhicinay inta la xukumay wax loo dhaadhacay jeeral sida gaalkacyo kale sida qardho oo kale madaxa arrimaha bulshada ee dawladda hoose Umar Saciid Maxamed ayaa isaguna dadka reer Galdogob waxa uu baaqayaa inay bixiyaan canshuurta isla markaana ay la shaqeeyaan ciidanka ilaalada deegaanka ee madaniga canshuurta waa in la bixiyaa waxaan ku shaqeynaynaa hadda oo aanu dadka ku soo xirxirnay oo ku soo ururinay oo hadda ciidanku halkan ku taagan yahay waa waxa yarka ah oo canshuurta oo inta yar ay bixiso oo aan ku hawlgalayno inta badan canshuurta ma bixiso dhammaantiin bixiya waana mahadsantihiin guul baan idin rajaynayaa ciidankan ilaalada deegaanka ee madaniga oo muddo kooban ka shaqeynaya degmada Galdogob ayaa la oran karaa waxa ay soo celiyeen systemkii dawladnimo iyo kala dambeyntii sharciga ahayd oo Galdogob ay ugu dambeysay muddo 20 sano ka hor deegaan walba qof ayaa ka hirgeliya kala dambeynta iyo dawladnimada Galdogob waxa gudoomiye ka ah Xasan Faarax Maxamed ayaxle waxa uu hirgeliyay ciidankan madaniga isaga oo kaashanaya odayaasha dhaqanka iyo jaaliyada degmada iyo dawladda Puntland waxa kale oo maamulka degmada Galdogob ay dayactir ku sameeyeen saldhigga booliska ee degmada Galdogob kaas oo bilicdiisa iyo qaab dhismeedkiisa ay hagaajiyeen bismillaah alxamdulillaah aad baan ciidanka madaniga ee ka shaqeynaya degmada waan uga mahadcelinayaa shaqooyinka ay qabteen maxaabiista ay hayaan waxay u shaqeynayaan dalkoodii dawladooduna waxay ka caawinaysaa tababarra insha Allah la siin doonaa xogaha kabista oo mushaar kabista ah oo jaaliyada dibaddu ay ku caawiyeen anagoo dhan baan uga mahadcelinayna waayo tuug haddaan la qabanin wuxuu keenayaa dhibaato ka xun dil buu keenayaa boob buu keenayaa iyo hantidii dadka waxaan rabnaa inaan raahno shaqeeya wixii dawladdu ku tala gashay insha Allah waa heli doontaan wixii jaaliyada ahda mushaarkiina waad helaysaan gaadiidkiina waxaan rajaynaynaa ay ballan qaadeen inaan insha Allah heshaan laakiin inayna seexanin habeenkii xaafadaha la maro qof waliba wuxuu ku seexday la soo ogaado nabadgelyadu ay tahay muhiim degmadan waa degmo weyn 29 beelood baa laga xukumaa waxaan rajaynaynaa markaa gudaheeda xasilisaan insha Allah meelaha kale oo muhiimkaana inaad ka shaqeyn doontaan shaqeeya dadkiina u shaqeeya naftiina iyo dantiina u shaqeeya Iman Maxamed Gani Puntland TV Galdogob